كي إلهي لقرب قرو هل كان وين ويا الله ربي صومري قبيل نكنا دمستر أنا كيريوا مش كنا دمستر لقربا ما كتاسا وغرسك تيتي كان هو في العوية قبضي أفكر كلام وباي مركز تفضلت الكم سومالي خاصة هذا تنفكم ما يتك هذا لو هو دلمني لكن اللي تقدر لها عسى شاء إلهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آدي أروما سيهاي صداقة وحن هذا نقصد ويننا وأحمد عبد الله حرسي أحمد عبد الله حرسي صدقوا وكمل لكن عصدا سوق ما كنت جاي مجال المباصة أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka xafladda isugu yimaaday kulligii salaanta Allah bigu salaamay inta ka bacdi waxaan hambalyo diiran u direynaa madaxweynaha Dr. ee la doortay Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay xil culus baa madaxweyne lagu doortay ilaahay ha kula galgal xilka lagu doortay maanta Soomaaliya dhib badan baa ka jira dhibaatooyin badan baa ka jira ilaahay waxaan ka baryaa kii uu maaragtaa sababta bixin lahay uu ilaahay kaa dhigo soo dhawowgaana leenahay madaxweyne midda kale waxaan la hadlayaa shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal waxaan nahay shacabka kaliya ee madaxdooda inkaara mucaarad waa la noqon karaa mucaarad wax dhisa aan noqono laakiin yaana madaxda iska inkaarin madaxda haddaan inkaarno ilaahay nagu ugu karbaashayaa haddaan inkaarno inagu dhib loo keenayaa aan madaxdeenna u ducayno oon madaxdeenna aan garab istaagno adoo mucaarad aan rabaa inaan waddankaada dhistid waddankaada aan garab istaagtid maaragta mucaarad wax dhisa aan noqono yaana noqonin mucaarad wax dumiya intaas waxaan uga baxayaa shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa wax yar baan haystaa maaragta in xoogaa laygu darana waan rabi lahaa laakiin xaqiiqada yar baan haystaa shacabka Soomaaliyeed oo aan dowladdeena garab istaagno mucaarad iyo muxaafadba mucaarad waa noqon kartaa oo mucaarad lama diidaba laakiin noqon mucaarad wax dhisa oo wax toosiya inkaar hala fariisanay hadda dad badan baan aragnay ayagoo mucaarad ah haddana inkaar loogu darayaan haddaad inkaartid waddankii baa lagu karbaashi shacab wanaagsan madax wanaagsan bay helaan innagii baa bal innaga aan istoosina shacabow dowladdeena aan la shaqayno haddaad mucaarad tahay iyo haddaad muxaafad tahayba bal waxaan samaynaa inaan dowladdeena dhisano hadduu ilaahay yidhaahdo midda kaleete aan ku darsanaya waxay tahay walaalayaal waddankeenu waxaan ku burburnay qabiil walaalayaal qoys baan nahay markaan hadda aan u soo noqono Afrikada bari dadka aan la deganahay qoys baan ka nahay qabiil wax uu taraayo ma laho wallahi qaran baan anfici 30 sano qabiil daba taagnay 30 sano maaragta qarankeena qabiil aan ku dubanayeen jeclays waraan iska dayno hal qoys baan nahay Soomaaliyeed hal qoys baan nahay qabiil aan iska dayno qabiil waxba nooma tarayo da'u fa innaha mumtiru nabi Muhammad war qabiil ka taga waa حال جيبك ما بشكرتها والله النبي محمد حارب قلت المبي صلوات الله عليه وسلم والله الله يا رب كان دولتنا قرب استانو ماذا واحد مدحوينينا قرب استانو حلك اللون من إلهي السقا هذا الله قرب قرب إلهي ما ربتها الله قرب قرب والله الله يا رب خبير آمين إسكامينو كويس بارنا قرب بارنا أنفعي صدر صرم من جعليسي يديه بيكا كويس بارنا dadka aan la noolnahay 40 iyo 2 qabiil waay hal qabiil oo kamid ah markaasaan maanta oo dhan dowladdeena intaan taageer lahayn baa qabiil daba socda marka hadalkayga waan dheereeyay taas baan uga baxayaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ku dardaarmayaa war dhalinyaro gacmaha isqabsada war dhalinyaro waddanka mustaqbalkiisa inigaale odayaal 60 jir ah maanta waddankii jooga
ودليرة هكا شو سياسة هاي استاكتو دليرة بعدها اسقط قبيل لها كدولة تاسع وقبحيا وصل الله